Assalaamu calaykum waraxmatullah. Isku soo noqod wanaagsan. Laba week waxba ma soo gelin labadii weega ugu dambeeyay sida halkan ka muuqata. Badanka may dhici jirin marka sidaasi oo weegiiba waxaan soo gelin jiray hal video ama laba video. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa sababta aan markaasi u soo gelin waayay muuqaalada labadii weega ugu dambeysay iyo waxa aan sidaas oo dhan ugu mashquulay. Waxa ay tahay markaasi waxa aan ku mashquulsanaa oo aan sameynayay course aad u wanaagsan aad iyo aad u fiican oo aan labadii weega ugu dambeysay dhanba ka shaqeynayay. Okay, muxuu yahay markaasi course-kaasi aan soo geliyay Xirfad Academy? Course-ku waa kan oo marka aad tagtid xirfadacademy.com qeybta homepage-ka ay ku urursan markaasi courses-ku waxaad arki kartaa inuu yaalo course cusub oo magaciisa la yiraahdo The Complete Shopify Dropshipping Masterclass. Okay, haddaynu markaasi ku dhufano oynu eegno gudihiisa, course-kan waxa uu ku saabsan yahay markaasi gebi ahaantiisuba Shopify ama e-commerce. Sababta aan u sameeyay course-kuna wax weeyaan waxaa jira dad badan oo jecel inay markaasi samaystaan e-commerce stores oo ay samaystaan markaasi business ay ku ganacsan karaan oo ay wax ku iibin karaan si online ah. Laakiin dhibta haysata ayaa waxa uu yahay waxaanay garanayn markaasi codingkii ama programmingkii. Waqti dheer ayay markaasi ku qaadanaysaa inay bartaan programmingka ama codingka. Marka waxaan go'aansaday inaan sameeyo course aan qofka uga baahanayn inuu yaqaano coding ama programming si uu u sameeyo markaasi dukaan online ah oo ganacsi markaasi uu ka samaysan karo ama sidoo kale uu u dhisi karo dad kale oo uu si freelancer ugu shaqaysan karo. Shopify waxa weeyaan markaasi tool kuu saamaxaya inaad samaysato markaasi dukaan ama ganacsi markaasi online ah e-commerce sida la yiraahdo adigoon markaasi garanayn wax programming ama coding. Laakiin shardigu wuxuu yahay waa inaad taqaanid sida loo isticmaalayo toolkan. Marka course-kan oo dhan wuxuu ku saabsan yahay Shopify sida loo soo geliyo alaabta, sida looga ganacsado, sida loogu samaysto website, sida loo soo geliyo collections iyo waxyaabahaas oo dhan. Dabcan wax yar kadib baynu u gudageli doonaa contentiga course-ka. Course-ku waxa uu gudihiisu noqon doonaa markaasi sida tan. Waxaan u qaybiyay markaasi 6 section. Qeybta koobaad oo ah qeybta setup iyo qeybtan course section, qeybta saddexaad oo ah markaasi design and branding iyo core 2 section iyo qeybta markaasi shanaad oo ah store settings. Xabad baynu ugu iman doonaa, hadda waan dul marayay markaasi. Iyo qeybta ugu dambaysa oo ah markaasi qeybta aan ku dhigay ama aan geliyay sourceska iyo bookska. Qeybta koobaad waxa aan markaasi ku dhigan doonaa topigyada ay ka mid yihiin markaasi Shopify themeska iyo sidii aad ku heli lahayd markaasi theme si aad ugu isticmaashid businesskaaga ama dukaankaaga. Shopify wuxuu leeyahay themes markaasi paid version ah iyo kuwa markaasi aad free ku isticmaali karaysid. Marka course-kan uma baahan doontid inaad iibsatid wax theme ah. Waxaynu isticmaali doonaa markaasi theme markaasi free ah, kadibna waxaynu ku samayn doonaa customizing oo qaab aan inagu jecelnahay oo qurux badan ayaynu ka dhigi doonaa markaasi themekeena. Qeybta labaad markaynu intaa koobaad ku dhamayno sidoo kale waxa aad geli doontaa imtixaan yar quiz oo aad ka jawaabi doontid su'aalaha ay ka mid tahay tusaale ahaan what's Shopify iyo waxyaabii aynu kusoo dhiganay markaasi sectionka ku xiga waxaynu ku baran doonaa sida loo soo geliyo alaab adigoo isticmaalaya markaasi themekii aynu hadda soo gashanay aynu kusoo baranay qeybta koobaad. Sidoo kale waxaynu ku baran doonaa sida loo create gareeyo collections macnaheedu waxa weeyaan meel aad wax ku ururinaysid productyo kala duwan aad ku ururinaysid sida dukaamada waxay u kala qaybiyaan dharka dumarka, dharka ragga, kabaha. Marka sidii aad u sameyn lahayd markaasi collectionskaas ayaynu ku baran doonaa qeybtan. Waxaa kaloo aynu ku baran doonaa sida collectionka aad samaysay aad ugu soo bandhigi lahayd pagekaaga ama dukaankaagaas online store-ka ah. Halkan waxaynu ku arkaynaa saddexdii collection aynu samaynay.
sida man, woman iyo shoes. markas waxaynu kusoo bandhigi doonaa dukaankeena. waxaa kaloo sectionka ku baran doonaa sida loo increase gareeyo ama kor loogu qaado iibinta aad iibinaysid productyadaada, oo qeybtaas waxay wax yar la xidhiidhaa marketingka. qeybta saddexaad waxa aynu ku baran doonaa ama sectionka saddexaad waa qeybta ugu muhiimsan marka laga yimaado core sectionska. qeybtan waxaynu ku taaban doonaa oo aynu ku baran doonaa shayga la idhaahdo design and branding, sidii aad u sameyn lahayd markaasi design qurux badan oo modern ah, iyo sidoo kale sidii aad uga dhigi lahayd dukaankaaga mid markaasi adiga khaas ku ah. oo brandingka ayaynu wax ka baran doonaa, sida loogada loo sameeyo, sida sawiro loo isticmaalo, sida kalaro markaasi dabaqaya iyo font dabaqaysa ama qoraal dabaqaya dukaankaaga oo ka duwan oo unique ah loo samaysto. yacni markaad dukaan samaysanaysid ama business, waa in shaygaagu ay dadku soo xasuusan ogyihiin oo uu ka duwan yahay businessyada kale. taasaynu markaasi focus ka saari doonaa sectionkan. qeybta afraad ama core 2 sectionkan iyada waxaynu ku baran doonaa sida markaasi loo sameeyo accountnada customerska. yani markaad dukaan leedahay waa in aad markaasi dukaankaagu ay suurtagal tahay dadku inay login sameeyaan oo ay markaasi samaystaan account iyaga khaas u ah. sidoo kale waxaynu ku baran doonaa sida loo akhriyo markaasi analyticska storekaaga, sida saleska aad samaysay bisha, sanadka, maalinta iyo wixii lamida. waxaa kaloo aynu ku baran doonaa sida loo sameeyo campaignska. si markaasi storekaagu uu u helo sales fara badan, waa in aad isticmaashaa campaigns oo Facebook aad kusoo bandhigtaa, Instagram iyo meelaha social mediaha. waxaa kaloo aynu ku baran doonaa sida loo sameeyo markaasi email automation. dabcan qeybtan waa qeyb muhiima, qeybta email automationku, oo qeybtan waxaad fariimo u diri doontaa dadka markaasi subscribe gareeyay newsletterkaaga, oo waxay kor u qaadaysaa markaasi saleskaaga iyo marketingkaaga. waxaynu markaa ku baran doonaa sida loo set up gareeyo email, sida loo design gareeyo emailka aad diraysid, qaababka kala duwan ee ay noqon karaan emailadaasi, iyo sida emailkaas ama themeka uu emailku leeyahay loogu ekeysiiyo sitekaaga. oo storekaagu waa in emailkiisa, designkiisa, colorskiisa, waxaasoo dhaniba ay isku egyihiin oo ay isdabaqayaan. taasna waynu ku baran doonaa markaas. dabcan ma taaban karo wax kasta aynu ku baran doono coursekan, laakiin inta ugu muhiimsan haddii aan soo ururiyo, waxaa kaloo aynu ku baran doonaa sida markaasi discount couponska loo sameeyo, oo loo discount loogu sameeyo dadka markaasi customerska isticmaala adeegaaga wax ka gata markaasi dukaankaaga. qeybta ugu dambeysana waxaynu ku baran doonaa store settingska, sida marka tusaale ahaan sida loo hagaajiyo general store settingskaaga, loo diiwaan geliyo storekaaga, magaciisa loo hagaajiyo, domain loogu gado, payment methodska, sida loogu xidhiiriyo markaasi payment method, sida visa card, mastercard, paypal iyo waxyaabahaas oo dhan. waxaa kale aynu ku baran doonaa sida markaasi loo hagaajiyo qeybta checkoutka, oo qofku markuu alaabtii gato ee uu joogo checkoutka, sida markaasi loo design gareeyo, loo hagaajiyo, loo qurxiyo, waxyaabahaas oo dhan, iyo qeybta checkout configurationka. waxaa kaloo aynu ku baran doonaa sectionkan sida loo dejiyo markaasi shipping and delivery methods, sida loo hagaajiyo markaa qeybta looga dhigo ama pricing loogu sameeyo, iyo sida loo set up gareeyo adeega. tusaale ahaan dadku markay wax kaasoo dalbadaan waa inuu jiraa markaasi qeyb shipping ah, ama dadkii aad u geynaysid alaabtii. waxay noqon kartaa mid aad gacantaada adigu aad ugu geynaysid oo adigu qaabilsan tahay, ama waxay noqon kartaa mid shirkad kale ay kuu qaabilsan tahay oo ay adeegaas samaynayso. marka labada qaab waynu ku baran doonaa. waxaa kaloo aynu ku baran doonaa Shopify wuxuu leeyahay markaasi plans iyo pricing, oo adeegan Shopify maaha mid free ah, waa mid aad lacag bixinaysid. oo waxaynu markaa ku baran doonaa qaabka aad u kala dooranaysid pricing planka ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
waxa kale aynu ku baran doonaa markaasi sida loo samaysto custom domain, yani domain u khaasa oo u gaara dukaankaaga. halka qaybta ugu dambeysana aynu kaga baran doono ama aynu ku eegi doono sida uu eegyahay storekeenu iyo waxyaabahaas oo dhan. okay, markaynu dhammaystirno sitekeenu waxa uu ekaan doonaa ama dukaanka aynu dhisayno waxa uu ekaan doonaa qaab sidan oo kale yani waa dukaanka aynu markaynu dhammayno course-kan aad ku dhisi doontid. halkan sare waxaynu ku haysanaa minihii, qaybtan sare waxaynu ku haysanaa searchkii, halkan waxaynu ku haysanaa loogadii, halkan waxaynu ku haysanaa collectionskii kala duwanaa sida muxuu ahaa qaybta kabahoo kale ama qaybta ragga, qaybta dumarka oo ay ku jiraan markaasi dharkii dumarku, iyo qaybta kabaha oo ay ku jiraan dharkii muxuu ahaa waxaan jeedaa kabihii. halkan waxaynu ku haysanaa new arrivals oo aynu dhigi doono alaabaha cusub ee aad kusoo dartay dukaankaaga. halkan waxaa inoogu jira qaybta discount productska, halka qaybtana ay inoogu jiri doonaan productyadii oo dhan. halkan waxaynu ku haysanaa text iyo qoraal qurux badan oo design qurux badan aynu u samaynay. halkan waxaynu ku haysanaa call to action button sida text iyo muxuu ahaa waxyaabahaas oo kale. halkan waxaynu ku haysanaa newsletterkeeni waa qaybteeni footerka oo uu qofku ka markaasi subscribe garaynayay si ugu soo biiro markaasi muxuu ahaa qaybta subscriptionka ee dukaankaaga. yacni waxyaabahaas oo dhan ayaynu ku baran doonaa. haddaan soo koobo course-kani waa mid markaasi muxuu ahaa aad iyo aad u wanaagsan qof kasta oo doonaya markaasi inuu business samaysto sida muxuu ahaa e-commerce store oo uu isagu markaasi ku ganacsado dukaankaas oo uu alaab soo dejiyo ama alaab sii iibiyo waa uu anfacaya markaasi course-kani. sidoo kale wuxuu anfacayaa qofka doonaya inuu noqdo freelancer oo uu dukaanada waaweyn ama kuwa yaryar ama kuwa dhexdhexaadka uu u sameeya markaasi stooro ay alaabtooda ku iibin karaan. informationka muxuu ahaa course-ko dhan waxaad ka akhriyi doontaa markaasi website-ka Xirfad Academy, kadibna waxaad sii tegi doontaa course-kan oo waxa bartan aan ku qoray markaasi informationkii oo dhan. inta aanad muxuu ahaa gadan ayaad markaasi arki kartaa informationka iyo contentiga ku dhex jiro oo dhan iyo waxaas oo dhan. dabcan markaad dhamaysid waxaad heli doontaa markaasi shahaado sheegaysa inaad dhammaysatay course-kan. marka course-kani wuxuu kaa qaadi doonaa from zero to professional Shopify developer. muxuu ahaa muddo yar oo kooban ayaad ku noqon kartaa markaas qof samayn kara dukaano e-commerce adigoon isticmaalayn wax programmina ama wax codina. okay, ugu dambeynta pricingkiisu waxaan ka dhigay markaasi laba qaybood baad kala dooran doontaa. priceka halkan ku qoran wuxuu shaqaynayaa 2 week oo keliyata. 2 week kadib wuxuu noqon doonaa markaasi $30. laakiin hadda labada week gudihiisa waxaan u sameeyay markaasi dadka discount oo waxaad ku iibsan kartaa hal mar haddii aad bixinaysid $19. haddii aad doonaysid inaad kala bixbixisid oo aanad 19 ka haysanna 3 bilood baad bixin kartaa bil walba $9. laakiin hadhow markay labada week dhamaadaan dabcan way isbedelayaan pricing-kani. okay, hadda waxaan rajeynayaa markaasi inaan muxuu ahaa I think ka jawaabay su-aasha ahayd maxaad intaas oo dhan labada week oo dhan aad usoo gelin weyday muuqaal. marka arrintaan ku mashquulsanaa waxay ahayd samaynta course-kaas oo course-kaasaan doonayay inaan dhammaystiro. alxamdulillah iminkana wuu dhammaystiran yahay oo muxuu ahaa wuxuu ku jiraa Xirfad Academy. marka muuqaalkan intaas ku saabsanaa. haddii aad xiiseynaysid arrimaha e-commerce muxuu ahaa iyo sida loo samaysto dukaanada online-ka waxaad daawan kartaa muuqaalkan. haddii aad doonaysid course-ka inaad qaadatidna waxaad tegi doontaa xirfadacademy.com. bartaasaad markaasi course-ka ka eegi doontaa. linkigana waxaan dhigi doonaa qaybta hoose ee muuqaalkan. intaanan gabagabayn muuqaalka waxaan doonaya inaad la socodsiiyo waxaynu ku dhownahay hadda 9,000 oo subscribers ah. muuqaalkan markaan duubayo waa 8,950 I think. marka waxaynu doonaynaa inaynu gaadhno 10,000 iyo waxoogaa baa inooga dhiman. fadlan haddaad xiisaysid muuqaaladayda ama arrimaha programmingka, web development, ganacsiyada, sida kor loogu qaado productivity-ga, waxbarashada iyo waxyaabahaas oo dhan
fadlan waxaan kaa codsan lahaa inaad subscribe tiraadid si aynu markaasi u kobocno si community-geenan markaasi u bato okay intaasaan kusoo gabagabeynaya tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabaday